dawladda qarsoon ee Bavaria aadanaha shaydaan kala shaqaystay hantida adduunka taal iyo siyaasadda daaha gadaashiisa ka maamula kuwii kala geeyay diimaha iyo dawladnimada iyo kuwa sheekadooda beenta u badan ee dunida ugu faaftay sida aan xuduud lahayn kooxdan la yiraahdo Illuminati-ga ama Maasoniyadu ayayna muuqeena ku eegaynaa halka ay ka soo bilowdeen taariikhaha iyo meesha haatan sheekadooda ku dambayso 1776 ayaa gobolka la yiraahdo Bavaria ee dalka Jarmalka waxaa ka soo baxday koox yar oo u dooda in ra'yiga iyo ficilada aadanuhu ku saleysnaadaan aqli iyo aqoon halkii ay diin ku jaangoonaan lahaayeen in kor loo qaado xuquuqda xorriyadda dadka in laga xarig furto kaniisadaha Kaatooliga iyadoo goortaas kooxdan iyo wadaadadii kaniisadaha oo loolan xooggan ka dhex qarxay isla xilligaasi Professor Adam Fiesam ayaa bilaabay inuu dadka baro falsafada cilmaaniyada goor hore baa caqabado waaweyn ay wajahday talaabada Adam yeeshee waxa uu go'aansaday inuu aragtida ku dhex faafiyo kooxdan qarsoon kuwa oo la yiraahdo Secret Society-ga midda oo door weyn ka qaadatay afkaarta kooxda ay ka soo horjeeday kaniisadaha isla falsafadiistahan Jarmalka ayaa kooxdan u bixiyay magaca Illuminati waxaanu isla waagaasi go'aamiyay inay iskaashi la sameeyaan koox kale oo ay afkaar ahaan isku dhawaayeen hayeeshee iyadu lahayd wado ay aragtideeda ku kordhiso kuwa oo iyana la oran jiray Freemasons wixii intaa ka dambeeyay Illuminati-ga waxa ay noqdeen koox dhaqaale ahaan iyo saameyn bulsheed ahaan xooggan Fiesamna waxa uu sii waday ismaha kooxdiisii oo ay weliyaan Freemasons xubnihii ugu horeeyay Illuminati-ga waxa ay noqdeen guddiga sare ee kooxdan guddiga oo ay ugu horeeyeen Adam Fiesam iyo Banon Adloff oo isagu ka yimid Freemasons-ka oo isagu noqday midka fikradaha Illuminati-ga dadka ka iibiya isla markaana soo xeregeliya shakhsiyaadka cusub midda oo saashay in tirada kooxdani kobcdo waxaana 1788 tiradooda lagu sheegay ilaa 600 oo qof kuwa ay xubno ka yihiin siyaasiyiin saameyn leh iyo aqoon-yahano halkii ugu horeysay si buuxda looga taageeray waxa ay ahayd dalka Mareykanka oo madaxweynihii waagaas Thomas Jefferson ayaa falsafada Professor Adam ee ah in la kala sooco dawladnimada iyo diimaha ugu yeeray mid dhiirigelin leh halka oo ay sii kordhisay cabsida boqoradii Yurub wadaadadii kaniisadaha ee afkaarta kooxdan waxaa sii xoogaystay sheekada qarsoon ee Illuminati-ga iyo saaxiibadooda Freemasons-ka waxaana ay noqdeen kooxo hanti adduun oo badan haysta midda ay ku socodsiin karaan afkaartooda halkii ay doonaanna ku fargelin karaan mid u cadaatay wadaadadii kaniisadaha iyo madaxdii dawladaha qaar ayaa saaxay in kooxdan yihiin kuwa doonaya inay xididada u siibaan aqoonta iimaanka iyo akhlaaqda bulshooyinka kuwan ayaana ah siyaabaha lagu qeexo ficilada kooxdan halka ay iyagu ku doodaan inay kaliya falsafadoodu tahay kala geynta diinta iyo dawladnimada xoogaysigooda dhaqaale saameyneed waxa uu sababay in lala xiriiriyo ridida boqortooyooyin iyo qaar ka mid ah dawladihii Yurub dhacdoonkii Faransiiska 1789 ayaa la wariyay inay kaalinta ugu weyn ku lahaayeen ogow falsafadii Professor Adam Fiesam ee ahayd kala geynta diinta iyo dawladnimada wadanka ay sida ugu xooggan uga dhaqan gashay waa kan Faransiiska waxa dhab ah in kooxdani wali jiraan xooggan yihiin oo saameyn ku leeyihiin siyaasadda iyo dhaqaalaha adduunka sidaan horay u niri ficiladooda waxa ay u badan yihiin la dagaalanka aqoonta iyo akhlaaqda aadanaha mid kale oo la sheego ayaa ah inay xiriir la leeyihiin shaydaanka muuqaal kale ayaynu tan ku dhuganaynaa